waxaa hadda la bilaabay laamidhisida wadooyinka magaalada Boorama oo xilli sii horeysa la dhisay balse burbur soo gaaray muddooyinkii dambe ayaa hadda waxaa la bilaabay in dayactir lagu sameeyo maamulka dawladda hoose magaalada Boorama ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa bulshada magaalada Boorama ay kala kulmayeen dhaliila inaysan waxba aysan ka qaban wadooyinka burbursan ee magaalada Boorama balse hadda maamulka dawladda hoose magaalada Boorama ayaa hadda waxay bilaabeen dib u dhis iyo dayactir ay ku sameeyaan wadooyin tira oo ku yaala magaalada caasimada waa gobolka Awdal ee magaalada Boorama zaaka ayaa mar kale dawladda hoose magaalada Boorama waxay dayactir ay ku sameysay wadada ku taala xaafadda Sheekh Ali Jawhar oo amarin muhiim ah isla markaana xidhiidhiya xaafadda iyo suuqa magaalada Boorama dayactirka jidkan waxa kormeer ku soo maray maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xaddi isagoona sheegay in dhammaan wadooyinka magaalada Boorama ay dayactirayaan maan raxiim halkan aan joognaa waa wadadii Sheekh Ali Jawhar waad ogtiinoo ramxad Ilaahay baa daaday wadoonkii oo dhan damage gareysay laakiin waxa Ilaahay mahadiya maanta wadada aad arkaysaan waa wadadii afraad ee inta roobka ka dambeysay aanu dayactirnay waa wadadii Sheekh Ali Jawhar waa repairing baa lagu sameeynaa dhammaan wadooyinka magaalada waxaan ugu talagalnay inaan sidaa u repair gareyno inta hore marka jecelna waxaan ugu bishaareynaa meel kasta oo biyahaasi damage gareeyeen ama ay dhaawaceen ama ay awdaadku gooyeen in loo sameyn doono dadkana waxaan ku dhiiri gelinaynaa oo waliba ka codsanaynaa marka hore mar labaadna ay noqon doonto in sharciga la hirgeliyo in ay ilaaliyaan biyaha wadooyinka ku soo shubayaan inay ka ilaaliyaan inay hortooda godad ka qotaan ayaanu faraynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin wadooyinkuna saas u soconayaan ilaa aanu ka dhamaystirayna haddii Ilaahay dhaafo kan waa jidkii misaadee gudoomiye dayactiraysan maanta tan iyo intii roobabkaasi ay ka deen magaalada waa jidkii afraad waad ogeedeen habeenkii dhawad waa daawanaysan laba jid oo sameeynay dhulkii ugu dhibaatada badnaa ayaanu ka bilownay waxaan ugu talagalay inaan sii wadno ilaa aan ka dhamaystirayna haddii Ilaahay dhaafo waxa jirta jidka bartamaha magaalada Mara ee halbowlaha aad ay u burbursan yahay dadkuna aad ay uga cawdaan ka isaga maxay idinka qorsheysan marka la isbarbar dhigay ka iyo kana dhibaato badnaa marka sida u kala dhib badan yihiin ayaan u kala horeysiinay kaasina uu noogu xiga haddii Ilaahay dhaafo gebigiisa waxa la doonayay inaan remove gareyno on laami cusub inaan saarno haddii Ilaahay dhaafo waayo biyihii baa jilciyay dareerajadiina way soo xidheen marka waxaan doonaynaa haddii Ilaahay dhaafo inaan gebigeeda intaan carrada ka qaadno dhismo cusub aan ku sameeyna haddii Ilaahay dhaafo zilamida dhanka kale waxa la dhameystiray jidka ku yaala xaafadda Hayayaab ay baahi weyn u qabeen bulshada ku nool xaafadaasi sida ay ka marqaati ka ayaan darawaliinta ku shaqeysta mootobajaajta oo cabriya aragtidooda ku aadan dhismaha wadada ayaa waxay u mahad celiyeen duqa magaalada Boorama Salebaan Xasan Xaddi wadadan Hayayaab tagta waxa dhibaato badan baa dadka ku haysay kol daadku qaado mar yaano la mari kari waayo meeshaasi aad iyo aad baad u mahadsan yihiin dawladda hoose iyo idii ka qayb qaadatay waana ku mahadsan yihiin waana isku xid insha Allah waxaan rajaynaynaa inay kuwa kalena ay ku daraan oo saasoo kale loo dhibaataysan yahay magacaygu waa Bilaal Jamaal Cabdullaahi waxaan ka mid ahay gaadiidka dhalinta ku shaqeysata mootada loo yaqaan mooto bajaajta hadda waxaan taaganahay wadadii Hayayaab waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqay maayirka degmada Boorama oo magaranaysa wadada aadka u dheer ee aadka u quruxda badan laantii anagu aad baan ugu baahnay wadada in loo sameeyo aad iyo aad baan gudoomiyaha ugu mahadnaqaynaa waxa weeye gudoomiyaha aad buu maasiyay wax qabad fiican buu gobolka ka qabtay inta ay in ka badan waan ka sii rajeynaa wadadana insha Allah tacaala inuu leedashin noogu xidho noo iftiimiyo gudoomiyaha aad baan uga horsiganaa intaan insha Allah tacaala dhankiisa maayirka magaalada Boorama oo halkaas ka hadlaya waxa uu ka xog waramayaa geedi socodka dhismaha wadada xaafadda Hayayaab Bismillahir Rahmaanir Rahiim biriishka nimankan joognaa isaguna waxa weeyaan waa biriishkii labaad ee aanu imika wax ka qabanay sanadka gudihiisa waad arkaysaan waa meeshii ugu dhibaatada badneed ee ugu cabashada badneed ee intaas oo maamulay soo maray aan waxba laga qaban waxaan rajaynaynaa dadku sida ay tilmaamayaan leedkana waan ugu xidhaynaa awal lama mari jira hadduu roobdo lama mari jirin laakiin maanta iyadoo oo roobku da'ayo ayay gawaarida iyo bajaajta iyo dadka lugeynaya ay marayaan waxaan u sameeynaa dhulkay biyuhu ka baxayeen waad arkaysaan kaabadii iyo shaqadii baa imika socoto gabagaba ah waxaan ugu talagalnay haddii Ilaahay yiraahdo magaaladu inay noqoto magaca ay huwan tahay inuu ka muuqdo magaalada aad iyo aadna waa maasantiin inta wadooyinka dhibaataynaysa ee haddana marka dambe media ka hadlaysa waxaan leenahay waar dalkiina ilaashada annaga waxba hanoo ilaalinay idinku ilaashada waa dhulkii mustaqbalka caruurtiina ay mari lahaayeen ee caruurtiina ay maamuli lahaayeen ay madax ka noqon lahaayeen
cid ma laha waddada wanaajinteeda iyo ilaalinteeduna cid gaar oo maxir saarna si kastaba ahaatee maamulka dowladda hoose magaalada Boorama ayaa hadda waxa uu qaatay qorshe ah in muddada ka hadhay muddaxileedka golaha deegaanka magaalada Boorama ay kor u qaadaan bilicda guud ee magaalada Boorama ay qayb ka yihiin waddooyinka hadda dayactirka lagu samaynayo. waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Ariel TV Boorama.